Muqdisho waa magaalo madaxda ama caasimada Soomaaliya waxa ay juqraafi ahaan dhacdaa galbeedka badweynta India waa magaalo soo jiidanaysa indhaha maadaama ay saaran tahay badda India waana magaalada dalka ugu weyn sidoo kalena ah magaalada ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee Soomaalida ah Xamar waxa ay leedahay taariikh aad u fog xilligii la aasaasay magaaladan taariikhnadu waa isku khilaafaan qaarkood waxay aaminsan yihiin in la aasaasay qarnigii labaad halka qaar kalena ay aaminsan yihiin qarnigii saddexaad Muqdisho xilliyada hore waxay ahaan jirtay marin ganacsi oo kala qaybiya wadanka Hindiya iyo Yurub inta aan la qodin kanaalka Suez qarnigii afraad Xamar waxa ay yeelatay nidaam ama maamul u eksaldanad haddaba daawada waxa marar badan isweydiisay halkee ka yimid magaca Muqdisho ama Xamar sida ay taariikhanadu iskugu khilaafeen xilliga la aasaasay magaaladan oo ah waqti aad u fog si la mid ah taariikho kala duwan oo qoran waxa ay isku khilaafeen ama qolaba si gooni u qortay magacyo kala duwan oo loogu yeero magaalada Xamar ama Muqdisho magaca Xamar ayaa ah magac aad u taariikh fog marka loo eego magaca Muqdisho suugaanta Soomaalida iyo mahmaahda ayaa lagu arki karaa inta badan magaca Xamar dadka taariikhda baara qaar waxa ay sheegaan in magaca ka yimid kelmadda ximyar oo ahayd dawlad islaamka ka hor xukumi jirtay Yemen mas'uulna ka ahayd ganacsiga magaalooyinka dhaca bariga Afrika oo ay ka mid tahay magaalada Xamar si taas la mid ah magaca Muqdisho ayaa la rumaysan yahay in uu ka yimid kelmadda maqcad shaah oo loola jeedo kursiga boqorka ama meesha ugu wanaagsan ee boqorku degan yahay sida la sheego Muqdisho waxa xukumi jiray qarnigii lixaad Farisiyiin maadaama ay Soomaalidu kari waayeen ama ku adkaatay ereyga maqcad shaah waxa ay u bedeleen Muqdisho oo ah qaabka ay mujtamaca Soomaalida ah ugu dhawaaqi karaan magaca Muqdisho waa laba kelmadood oo ah maqcad oo ah Carabi loolana jeedo makaan ama meel iyo shaah oo ah erey Farisi ah oo loola jeedo macnihiisa boqor macnaheedu ma aha in Farisiyiintu Muqdisho wax ku lahaayeen laakiin magaalooyinka Carabta iyo magaalooyinka dhaca xeebaha Soomaaliya waxa xilliyo hore laga isticmaali jiray kelmado ama magacyo Farisi ah diinta Islaamka muddo aad u fog oo ah inta aysan magaaladan soo shaac bixin ayay soo gaartay marka ay dadka Muqdisho diinta Islaamka qaateen Xamar waxa ay noqotay darbi adag oo laga difaaco Islaamka gaar ahaan Afrika Muqdisho oo ah magaalo aad u weyn waxa ay dhowr mar soo noqotay caasimada maamuladii Soomaaliya gaar ahaan koonfurta markii xorriyadda dalku qaatayna waxa ay noqotay caasimada Jamhuuriyadda Soomaaliya dagaalkii sokeeye kadib Muqdisho waxa soo gaaray burbur aad u weyn waxaana ay mar ahaan jirtay caasimadaha ugu bilicsan caalamka waxaana ku yaala Xamar suuqa ugu mashquulka badan geeska Afrika iyo dekedda ugu balaran taas oo ka dhigan in Muqdisho door weyn ka ciyaarto isku socodka mandaqada bariga Afrika